shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxa kamid ah 38 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa 20,000 oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxa kamid ah lacag kaasha mobil Samsung iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo daatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobolada dalka beka bacdi intaynaan abaalmarinteen iyo shirkadda Somtel u gelin waxaan jecelahay inaynu soo dhaweyno oo u saacadno oo u hambalyeeyno oo naano mahadsantiin haddaynan inagu mahad celin cid u mahad celinaysa ma jirto intayna goobta ku sugan wasaaradda hawshan inoo qabatay ee juhdiga iyo dadaalka inoo soo gelisay waxaan jecelahay codsi inaad shacabka u tuntaan waana leenahay waa mahadsantiin inta ka bacdi waxaan jecelahay inaan u gudagalo ujeedkan halkan u soo istaagay waxaan uga mahad celinayaa mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta casriga ah Somtel oo sharaf iyo karaamiye ii siisay teemka ama inaan munaasabadan idinku soo istaago aniga oo wada abaalmarintii sanadlaha ee loogu magac daray macmiil noqo mulkiile oo 4 cisho ka hor aan ka daafurnay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland abaalmarintan oo ku baxaysa lacag ka badan 120,000 oo dollar oo macaamiisheeda ay shirkadda isgaarsiinta Somtel ku celinayso maadaama ay shirkadda Somtel tahay shirkadda dadweynaha waxaan jecelahay inaan u geli doono warbixin kooban ka bacdina waxaad nasiib u yeelan doontaan intii soo qof inaad guuleysan doontaan maanta oo shakhsiyaad idinka mid ah maanta ay guuleysan doonaan taasina farxad bay tahay maadaama aan joogo magaaladii aqoonta ee Boorama abaalmarintan waxaan ugu magac darnay sanadkan macmiil noqo mulkiile waayahay ujeedka aan ka leenahay abaalmarintan waxa weeyaan ma aha inaan wax kaga doonayno ama macaamiisha ayadu ku soo celino laakiin waxa weeyaan inaan macaamiisha wax ku soo celino abaalmarintan sanad walba waan qabanaa laakiin sanadkan waxa weeyaan macmiil noqo mulkiile ujeedadana waan idin sheegay waxaana 18 macmiil oo kamid ay ku fikir ganacsi oo gelin doono iyagoo ay ka xigto intifaaf khaliya oo ku shubto isna markaana uu isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ay bixiso waa nasiibkaaga ayuunba ka xiga iyo ilaahay oo kugu beega waxaana lacagtaasi ganacsigaasi ay u dhaxaysaa 1,500 iyo 20,000 oo dollar sida aad shaashadan ka aragtay yaa ka qayb qaadan karaya haddaba abaalmarinta waxaa ka qayb qaadan karaya macaamiisha isticmaasha adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel iyo Dahabshiil Group sida prepaidka postpaidka biilasha internetka ee guryaha iyo waliba qaybta mobilada Samsung ee shirkadda Somtel ay wado iyo waliba internetka meheradaha ganacsi ee loogu talagalay muddada ay soconaysa abaalmarintu waa muddo 9 cisho ama 3 bilood qaabka hadiyadaha loo bixinayo haddii aan yaro dul istaago hadiyaduhu laba qaybood ayuu u qaybsami doontaa mid waa hadiyadaha degdega ee maalinlaha ah muddada 9 cisho ah midna waa hadiyadaha toddobaadlaha ah ta hadiyadaha maalinlaha maanta ayaad nasiib u yeelateen in aad ka qayb qaadataan oo istijaabisaan waxaan idinka xigo qura inaad sidataan kaarka Somtel hadiyadaha kalena waa hadiyadaha toddobaadlaha oo isla markaana toddobaadkiiba hal mar lagu dhawaaqi doono cidda ku guuleysata abaalmarintan waa 14,000 oo hadiyadood iyo 120,000 oo dollar waa nasiib wanaagsan ayaan u rajaynayaa macaamiisha shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel haddaba waa 0.5 ku shubo inta ay socoto abaalmarintaasi aad isla markaana guuleyso adigoo isticmaalaya adeegyada e-dahab iyo waliba adeegyada kale ee shirkadda waqti ma hayo oo waan sii kordhin lahaa laakiin waxaan jecelahay inaan si toos ah u gallo abaalmarinta sanadlaha ee Somtel maadaama ay macaamiisha shirkadda Somtel ay dib ugu celinayso macaamiisheeda waayahay mas'uulka ugu sareeya
shirkadda somtel ee madasha nagula sugan ayaan u yeedhayaa waa nin dhallinyaraa laftiisa maanta dhan waxaa laa dhallinyaraa loo yeedhayaa annaguna dhallinyaraan u yeedhaynaa waxaan u yeedhayaa mas-uulkayga guddoomiyahayga cadnaan cadami si uu isaguna warbixin yar inooga siiyo islamarkaana inoo loo kareeyo abaalmarinta soo dhawo cadnaanow soo dhawo walaal waxaanu kaa codsanaynaa inaad abaalmarinta toos u gashaan sharaxaad waafiya khadar bayna siiyey dadkana waxbaanu disiinaynaa baa ku tiraahdeen laydima sugi karayo bilaaba wax bixiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka codsan lahaa cabdinaasir inta abaalmarinta si systematic ah loo qaadanayaayo dadku waxay doonayeen inay sameeyaan kale waxay doonayeen u sinaadaan marka si aan u dedejinayo haddii aan la idhaa waxaynu haddii aan la idhaa 14,000 ee hadiyadood ee uu sheegay khadar haddii aan la idhaa kuma jiraan 5 abaalmarinood oo halkan aynu ugu talagalnay inta hoolkeena fadhina ee khaaska ah shuruuddu siduu khadar sheegay waa inaad sidatid kaar somtela uma baahnid inaad ku shubatid 0.25 na ilaahay ka dhigay waa 0 marka waxaynu samayn doonaa qof walbaaba wuxuu la soo bixi doonaa haddii aan la idhaa telefoonkiisa wuxuuna message u diri doonaa numberkaa gaaban ee 4 messagekana wuxuu ku qari doonaa kelmadda haa waxaan idin siin doonaa muddo 1 minute maadaama qoladani neerinayso waxaan si sharaxi doonaa inta aad soo diraysaan 5 hadiyadood maxay noqonayaan hadiyada ugu horeysa waxay noqon doontaa bil ku hadala oo lagu subi doono numberkaaga hadiyada labaad waxay noqon doontaa Allahumma salli ala Muhammad data 17 GB ah hadiyada saddexaad waxay noqon doontaa mobile cusub hadiyada shanaad afraad waxay noqon doontaa iyaduna mobile hadiyada shanaadna waxay noqon doontaa 4G MiFi cadnaan shaqana uu idiin diray waxaana uu idiin sheegay shaqada dhamaysta xagga dabar idinka sheegay waxaad helaysaa okay waxaan ka codsanayaa waxa dhici doona si live aynu halkan uga daawan doonaa waayo random buu system ku wareejin doonaa nambarada soo diray dabeetana mid buu dooran doonaa dul istaagi doonaa qofkaas wuxuu noqon doonaa guuleystay 5 hadiyadood bas aynu waqti uga faa'iideysano waan israacin doonaa waxaanse ka codsanaya marka aynu ku dhawaaqayna hadiyadahaas si macaamiisha aynu guddoonsiino kala wasiirka way naga maqayaan filayay agaasimaha guud iyo baro saabkan ka codsanaya inay halkan soo istaagaan oo ay inoo guddoonsiiyaan 5 macaamiil abaalmaraha ay heleen waxaan kaloo halkan si shakhsiyan uga codsanaya inay imaadaan Dr. Madar iyo Dr. Ahmed oo iyaguna nagala qayb qaataan guddoonsiinta hadiyada Cabdimalik oo madaxda Somtel ku jiray isaguna inuu imaado iyo madaxa gobolka Cabdiqani Cali inay imaadaan hadii alla idhaa waa mahadsantiin Dr. Madar oo yara suga waxaynu samaynaynaa marka hore waxaynu qabanaynaa oo soo saaraynaa dadka guuleystay kadib barnaamijku marka uu gabagabada marayo dadka wada yeedhina madaxdoo dhan soo wada istaajinayna naga raali ahada cadnaan barnaamijku ay noo socdo horta hal la helo horta dadkii helay أنا كل شيء أدوبه بلو أدوبه نو بلو أوكي هدي الله يدا minute kii aynu qabsanay uu dhamaaday systemkeenu generate gareyn doonaa ciddii soo qortay message-ka ahaa haddii alla idhaa abaalmarinta koowaad ayaa halkaa ka soo bixi doonta cabdinaasir noblo sodhow kala saaraynaa start dhufano nambaradii soo xareeyay oo dhan macmiilkii koowaad oo aynu nidhi bil bilaashoo ku hadalayo heli doonaa start iigu dhufa cabdinaasirow nasiib wanaagsan talo ayuu noqonayaa talo makaasa maka ku xiga maka ka dambeeya makii hore uu soo ceshanayaa aan nasiibka eegno macaamiisha isku dayday inay ka qayb qaadato aad baan ugu mahadcelinaa u saabiyo nambarkaasi nambarkii ood ii joogi waxa uu nambarkaasi ku guulaystay bil ku hadala oo bilaasha kana bilaabi doonto maanta
waayahay macmiilka labaad u gal macmiilka labaad u gal naasirow waayahay waxaan rajaynayaa nasiibka labaadna waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqotaan xataa mas-uuliyiintaan rajaynaya inay ka mid noqon doonaan hablaha ayaan rajaynaya inay ka mid noqon doonaan wasaaradda lafteeda rajaynaya inay ka mid noqon doonaan waayahay waa winarkii labaad nasiib wanaagsan ayaan idin rajaynaynaa nasiib wacan ayaan idin rajaynaynaa congratulations waa macmiilkii labaad macmiilkaasi wuxuu macmiilkaasi miyuu fadhiyo gacanta ha taago iskooke annagaa la xidhiidhi doona inoo qoran macmiilka ku guulaystay abaalmarintii labaad oo ah 17 GB oo data free waayahay nasiibka saddexaad ayaan eegi doonaa ama macmiilka saddexaad ee nasiibku siiyo annagoo taymka ka faa'iideynaynaa nasiib wanaagsan macmiil mar kale nasiib wanaagsan ayaan idin rajaynayaa mar kale macmiilkaas saddexaad waxaan rajaynayaa in sidaan sheegayna qaybaha kala duwan okay hambalyo macmiilkaasi minagu jira hormalaha dee xaafadii baa lala hadlo waxa lagu uriyey dira waa laga gaadhsiiye way kaana waanu qoran doonaa annagaa la xidhiidhaynaa macmiilkaasi wuxuu ku guulaystay hadiyaddii saddexaad waa aniga weeye maasha allah hambalyo aniga sheege wuxuu ku guulaystay cabdifataax 4G mafi maasha allah hambalyo shacabka u tuma wasaaraddiina way heshaan malaynaya nasiibkeedii waayahay macmiilkii afraad ayaan rajaynaynaa imikana naasir cabdifataaxow waxaan ku darayaa waa la verify garaynayaa la soco nasiib wanaagsan ayaan rajaynayaa talow macmiilkaasi yuu noqon doonaa insha allah macmiilkaasi yuu noqon doonaa labadii hadiyadood ugu waaweynaa baa inoo hadhaye waa labadii moobile yuu noqon doonaa hambalyo macmiilkaasi isaguna waa ka aad baan ku hambaleynayaa macmiilkaasi wuxuu hadiyad abaalmarin u helay mobil hambalyo shacabka u tuma waa nasiib wanaagsan ninkaas macmiilkii shanaad ayaan rajaynaynaa inaan u gallo macmiilkaa shanaadna waxaan rajaynayaa inuu isaguna nasiibkaa weynu qaheli doono ama hadiyadda inoo hadhay macmiil nasiib wanaagsan abaalmarintan sidaas ayay u socon doontaa ganacsiyo waaweyn ayaad ku guulaysan doontaan oo fikirka idinku la iman doontaan oo faa'iida aani jiri doonin maasha allah hambalyo kaasi haddii uu fadhiyo nambarkiisu haysta waa inan maasha allah aad baan u hambalyaynaya aadna waan ku faraxsanaya inaan noqday kaasina wuxuu ku guulaysatay inantaasi mobil shantiiba saasay noogu dhan yihiin waxaan iminka haddii alla idhaa ku wareejin doonaa cabdiqaadir si inoogu soo dhaweeyo madaxda haddii alla idhaa inagala qayb qaadan doonta abaalmarinta inay guddoonsiiyaan macaamiisha yeeshay waxaa wanaagsan uu soo daahaabaa layidhi abaalmarintii ugu dambeysay oo aad halkan qof walba uu ku tartamay shantii dhalinyarta ayada ku guulaysteen ay noo fadhido oo ay samtel bixinaysay ayaan haddana u gudagelaynaa cadnaan baan u yeedhaya cadnaan haylala soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم marka koowaad waxaan u mahad celinayaa gobolka Awdal gaar ahaan caasimadiisa Boorama dhalinyarta aqoon-yahanka iyo guud ahaan shacabka magaalada Boorama waxaan kaloo mahad celinayaa wasiirka tiknoolajiyadda agaasimaha iyo dhammaan hawlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta intaanan dadkii ku guulaystay inaan halkan uga yeelin abaalmarintii aynaan siinin waxaana doonaya inaan samtel ahaan halkan ka xuso in aanu annaguna jaamacadda camuud ugu deeqnay lab telecom lab qiimihiisu dhan yahay $1,200,000
rakibistiisii iyo ka shaqayntiisii ayaa weli socota haddii alla idhaa insha allahna waxnuu qaban doonaa xalfad aanu ku wareejinayno insha allah markuu wareego agaasimaagtiisa waxaan hadda toos ugu yeedhaynaa dhalinyartii ku guulaysatay abaalmarintii macmil mulkiile noqo soomayn waxaa ugu horeeya cabdixakiin qalile tukaale oo ku guulaystay muraad cabdixakiin la soo dhaweey hadduu fadhiyo cabdixakiin soo dheere waxaa ku xiga sidoo kale cabdirashiid axmed xuseen oo ku guulaystay dayta 3 bilood ah soo saamayn bil free ah waxaa ku guulaystay sidoo kale kaalinta saddexaad saaxiibkaya oo nasiibkuna kala reebay cabdifataax cusmaan oo mayfay ku guulaystay cabdifataaxna ila soo dhaweeye cabdifataax mid baan ka dabageynaya oo nasiibku hadduuna kala reebay samta inayna kala reebtona waan eegeynaa waxaa sidoo kale isaguna ku guulaystay cabdiraxmaan saleymaan axmed oo ku guulaystay mobile cabdiraxmaan soo dhawow myfiga ay igu sharfeen somtel waxaan u hibeyn doonaa labadii nin ee dhallinyarada ahaa ee bartan ka jeediyey barnaamijkii u dambeeyey naasir iyo khadar aad buu mahadsan yahay cabdifataax ugu dambeyn salma xasan ibraahim oo ah iyaduna gabadhii ku guulaystay mobilka salma soo dhawow moraalkiinin baa iga maqan sawirku wuu socdaa aad iyo aad baad mahadsantiin madaxda shirkadaha waxaan ii soo dhaweeyay madaxda shirkadaha ila fariisiya soo dhawaada madaxda shirkadaha idinku fasax baa tihiin waan fasaxnay aad baad mahadsantiin ila soo dhaweeya madaxda shirkadaha waxaa hadhay abaalmarintii ugu weyneyd waa abaalmarintii wasaaradda weeyaan wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyaddu waxay aad uga mahadnaqaysaa shirkadihii kala duwanaa ee ka qayb galay taabagelinta shirka ICT conference sanadkii afraad shirkadaha badankoodu sanadkii koobaad ilaa sanadka maanta oo afraada waa ay la soo garab taagnaayeen wasaaradda maalgelinta iyo taabagelinta ee ka qaybgalka shirka marka shirkadahaasaan u yeedhayaa hal mar aan lila soo dhaweeyey shirkadda shirkadda somtel oo sanadkii afraad maalgelinaysa shirka ICT-ga somtel aad iyo aad baad mahadsantiin moraalkiinu laakiinse u hooseeya haddana waxaan u yeedhayaa shirkadda telesom oo sidaas la mida sanadkii afraad 2019 laga soo bilaabay ilaa maanta shirka garab taagnayd telesomana loo soo dhaweeyo cabdiraxmaan aadan shire shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 30 macmiil waxay ku guulaysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xaddiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa 20,000 oo dollarka Mareykanka hadyadaha kale ee macaamiishu ay ku guulaysan doonaan waxaa ka mid ah
lacag kaasha moobila samson ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo dhaatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka